labada daawadayaal warbixinteena maanta waxaynu ku eegaynaa 4 arrimood oo ay saynisyahanadu khuraafaad ka aaminsanaayeen cilmiga hortii. khuraafaadka iyo in la aamino arrimo aan xaqiiqo cilmiga loo haynin waa arrin weligeedba dunida soo jireen ka ahayd. si kastoo ay xadaaradaha, dhaqannada iyo diimaha bulshooyinka dunida u kala duwan yihiin, aaminsanaanta waxyaabaha khuraafaadka ahi inkastoo ay leegyihiin waa ay ka dhex jireen. waxa kale oo ay dadku aragtiyo khuraafaad ku salaysan ka qaataan wax kasta oo noloshooda ku cusub, sida cilmiga, cudurrada, dawooyinka, cuntada iyo dhinacyada kale ee noloshooda saamaynta ku yeesha. waxaa jira waxyaabo badan oo maanta dunida arrin caadiya ka ah ama dadka oo dhamme ay wanaag ka fishaan, balse soo maray waqtiyada qaar dadku ka haysteen aragtiyo taas burinaya. arrintani kuma koobna dadka caadiga ah iyo caamada, balse sidoo kale xeeldheerayaal iyo saynisyahano badan ayaa jira oo arrimo marka dambe cilmigu caadi ka dhigay waqtiyada qaar u haystay si ka duwan sidaas uu cilmigu sheegay ama fikro qaldan ka aaminsanaa. warbixintan waxaynu ku eegaynaa 4 arrimood oo waayada qaar ay fikrado qaldan dadku ka aaminsanaayeen, balse markii dambe uu cilmigu fikirkaas beeniyey. 1. kalooraha waxaa sababa hawo sun ah oo dhulka ka soo baxda. intii aanu cilmigu ogaanin in jeermisku uu yahay sababta cudurka, waxa ay saynisyahano badan ay aaminsanaayeen waxa loogu yeedho aragtiinka miyaasma, oo ah in xanuuno uu kalooruhu ka mid yahay sababtooda ay tahay hawo quruntay ama xumaatay oo dhulka ka soo baxday. fikradan oo aad ugu faaftay inta badan ee dalalka Yurub, Shiinaha iyo Koonfurta Aasiya ayaa qabtay in maadooyinka dhulka hoostiisa galaa kadibna ku milmaa ay marka dambe soo raacaan hawo dhulka ka soo baxaysa oo qof kasta oo ay gaadho ku keenaysa cudur. fikirkaas ay saynisyahanadu qarniyada badan qabeen waxa uu beenoobay markii sanadkii 1876 uu saynisyahankii caanka ah Robert Koch helay in jeermisku sababo cudurka, taasoo xaqiijisay in cudurradu ay ka dhashaan noole ilma qabatay ah oo noocyadiisa ay ka mid yihiin bakteeriyada iyo fayrasku, laakiin sababaha deegaanka la xidhiidha ay kaliya xanuunka u gogol xaadhaan ama saamayn ku leeyihiin sii badashadiisa iyo faafitaankiisa. lama baahna faradhaq iyo maadooyinka jeermiska lagu nadiifiyo. intii ka horeysay sanadkii 1960 dhakhaatiirta adduunku ma ay aqoonin dhaqanka maanta caanka ah ee ah in dhakhtarku uu gacmihiisa dhaqo, maadooyinka nadiifiya jeermiskana isticmaalo marka uu qofka bukaanka ah qalliin ku samaynayo ama nabar ku yaalla uu taabanayo. Dr. Ignaz Philipp oo ahaa saynisyahan iyo dhakhtar caafimaad oo u dhashay dalka Hungary ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee dhakhaatiirta u soo jeediyey inay gacmaha maydhaan marka ay taabanayaan qofka bukaanka ah, laakiin dhakhaatiirtii oo dhan ayaa fikirkaas ka hor yimi. qaar badan oo ka mid ahina waxa ay xaqireen Dr. Ignaz iyaga oo ku andacoonaya inay wax lala yaabo tahay in isaga oo aqoon leh uu aamino fikirka sidaas khuraafaadka u ah. xilligaas waxay ahayd ka hor intii aanu cilmigu ogaan in xanuunkuba uu ka dhasho jeermiska. sidaas awgeed dhakhaatiirtu marka ay qalliinka gelayaan siima ay dhiqi jirin gacmahooda lamana nadiifi jirin qalabka qalliinka marka bukaanka lagu qalo. waxaa ka sii yaab badan in xilligaas qaaradda Yurub iyo meelo badan oo kaleba aan laga aqoonin dhaqanka ah in dharka la dhaqo. Dr. Ignaz Philipp markii uu fikirka soo jeediyey ee inta la diiday aadna dhakhaatiirtu ula yaabeen, qaarkoodna yeeseen waxa uu ka qaaday cara gaadhay heer uu xakamin kari waayey ilaa uu faraha ka qaaday shaqadii uu cisbitaalka ka hayay. laakiin Dr. Ignaz Philipp maanta waxa uu cilmigu u aqoonsan yahay inuu ahaa ninkii hal-abuuray dawooyinka jidhka iyo gacmaha lagaga nadiifiyo jeermiska. 3. meerkarigu waa curiye bira oo dareero ah dunidana dhif ku ah. sida uu saynisku xaqiijiyey, curiyahan meerkari waxa uu khatar ku yahay guud ahaanba caafimaadka, laakiin waxaa hore u soo jirtay in dadku ay taariikhdii hore curiyaha meerkari u aqoonsanaayeen dawo mucjiso ah oo awood u leh in ay xanuuno badan si dhaqso ah uga takhalusto. sanadkii 210 ee ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam ayaa imbaradoorkii Shiinaha u talinayay ee lagu magacaabi jiray Qin Shi Huang waxa uu tegey nin dawo dhaqameedka wax ku dabiiba. waxa aanu ka codsaday inuu u sameeyo dawo geerida ka badbaadinaysa oo uu weligii waarayo. dhakhtarkii waxa uu hogaamiyihii waaritaanka doonayay siiyey kiniin samays ah oo gudaha ugu jiro curiyaha meerkari, taasoo sababtay in imbaradoorkii uu muddo gaaban gudaheed ku sumoobo, sidaasba ku geeriyooday. dhakhtarkan oo keliya kuma ay koobnayn dhaqanka ah in meerkari dawo ahaan loo isticmaalo, balse waxay ahayd arrin qarnigii 16aad dunida caafimaadka caanka dhex noqotay. muddo 4 qarni oo ka dambeeyey ahna aanay dadku joojin isticmaalkeeda oo markii dambe ay ku soo biirtay in loo adeegsado nadaafadda. dad badan ayaa u dhintay sumow ay ka qaadeen meerkari dawo ahaan loo siiyey, oo xitaa 90maadkii qarnigii dhowaa dad badan u isticmaali jireen ka hortagga uurka, laguna dari jiray qaar ka mid ah dawooyinka ilkaha lagu cadayo. ugu dambayntii waxaa la xaqiijiyey in meerkari uu khatar ku yahay neerfaha aadamaha oo xaaladaha uu ku keenaa ay ka mid tahay gariirka xubnaha jidhka, maskaxda oo meelaha ay dhaawacdo ay xusuustu ka mid tahay, caafimaadka nafsiga ah iyo maqaarka. markii uu cilmigu caddeeyey in meerkari uu yahay sun khatar ku ah caafimaadka, ayaa dunida oo dhan laga mamnuucay in si toos ah ama si dadban loogu isticmaalo dawooyinka, laakiin weli waa maado muhiim ah oo loo isticmaalo samaynta qalabka heerkulka lagu cabiro, qalabyo kala duwan oo caafimaadka loo isticmaalo, qalabka korontada iyo waxyaabo kale oo nolosha aadamaha muhiim u ah. 4. raacitaanka tareenadu waxa ay keentaa neefqabatow iyo waali. fikradda yaabka leh ee in badan oo aadamaha ka mid ahi ay aaminsanaan jireen waqtiyada qaar waxaa ka mid ah in qofku aanu raacin gaadiid ama shay kasta oo ku socda xawaare ka sarreeya 30 mayl saacadii.
dhakhaatiirta neerfayaasha iyo maskaxdu waxa ay qabeen in xawaaraha intaas ka sarreeya uu jahwareer iyo lulan dhaawac keena ku sababayo maskaxda, sidoo kalena qofka ay ku adkaanayso helitaanka neefta oxygentu iyo in dhawaqa tareenka ee xooggani ay qofka waali ku keenayso. laakiin waxay ahayd intii aan la hindisin tareenka. markii tareenka la sameeyey, dadka badankoodu waxa ay ka maageen raacistiisa iyaga oo ka baqa qaba in neeftu ku qabato ama dhaawac maskaxda iyo neerfayaasha ahi uu soo gaadho. waxaa aad u faafay fikrado iyo sheekooyin foolxun oo laga sheegaya tareenka. waxaa ka mid ahaa in dad badan oo xanuunada dhimirku ku dhaceen loo yaqaanay in sababtu ay tahay tareenka, waxaanay dadku aad u isticmaali jireen ereyga ahwaalida tareenka oo ay u haysteen arrin cilmiya. joornaalada arrimaha caafimaadka ka faallada ayaa iyaguna si joogto ah u qaadaadhigi jiray arrimo la xidhiidha tareenka iyo saamayntiisa caafimaadka, iyo waxa ay ku sheegeen calaamadaha lagu garan karo qofka waalida tareenku ku dhacdo. si kastaba ha haatee, fikraddaasi si tartiib ah ayaa ay hoos ugu dhacday, ugu dambayntiina u tirtirmatay markii ay soo badatay baahida isticmaalka tareenka, dadkuna si aad ah ula qabsadeen. Marjaan Tube.